waxaa shalay magaalada Cape Town ee waddanka South Africa si rasmi ah uga furmay shir sanadeedka jaaliyadda Soomaalida South Africa. xafladda furitaanka shir sanadeedkani oo shalay ka dhacday madarasada Sunna ee magaalada Cape Town ayaa waxaa ka soo qayb galay culumaa u diin, ganacsato, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay kulankaasi. munaasabadani oo khudbado kala duwan ay ka jeediyeen mas'uuliyiintii lagu casuumay ayaa waxa ay ka faaloodeen faa'iidada uu leeyahay kulamada diiniga noocan iyo kala ah jaaliyadda Soomaalida South Africa. in ummadda Soomaalida jaaliyadda Soomaalida ee ku soo kun waddanka Koonfur Afrika in macnaha la badbaadiyo xaqiiqatan walaalaheen majlisul bayaan jazaahumullahu khayran waxa leenahay jazaahumullahu anna khayral jazaa waxay u qumeen dowr loo baahan yahay in uu qof kasta ka fikiro haddii aan ka fikirno dhammaanteen inta soo haajirtay in shilin la raadiyo qof kasta oo noloshiisa ka fikiro waxaan isleenahay inta meesha maanta aan ku fadhino hadduu qof kasta uu ka fikiro naftiisa bes ah waxaa lumaayo qof kasta akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo mustaqbalkiisa oo aan ku deganahay diintani sidaan u horumarin lahayn oo u gaarsiin lahayn warasada naga hadhaysay waxay sii dhalaan qaabkeedii ragga albayaan oo maanta u guntaday inaanu ku raacno oo gacan ku siino oo aanan ka hor imaanin wax dheer ma haysto laakiin raggii joogay Sheekh Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdullaahi wadaadda iyo rag kale oo hadda meesha iga muuqda culumaa diinka lagu casuumay kulankan isla markaana inta uu socdo muxaadarooyin kala duwan ka jeedin doono ayaa waxa ay kala yihiin culimada kala ah Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun, Sheekh Cali Maxamuud, Sheekh Cali Wajiis, Sheekh Maxamed Cabdi Umul, Sheekh Maxamuud Shimbili, Sheekh Axmed Daahir Aweys, kuwa oo shir sanadlahani uga yimid wadamo kala duwan oo caalamka ka tirsan. marka uu dhamaado shirkan oo sanadkiiba mar lagu qabta waddankani South Africa ayaa culimada waxay u sii gudbi doonaan magaalooyinka kale ah Port Elizabeth, Rustenburg halka ay ku qaban doonaan kulamo noocan oo kale ah. shirkan ayaa ku soo idlaaday jawi aad u wanaagsan ayadoo dadweynaha ka soo qayb galinaya aad u faraxsanaayeen. Cabdillaahi Qorshe, Royal 24 TV, Cape Town, South Africa.